dood cilmiyaadkan oo ku saabsan ilaalinta afkaarta bulshada gaar ahaan dhalinyarada iyo sida looga wacyigelin karo falalka xagjirnimada ayaa waxaa ka qayb galay aqoon-yahano waxgarad culimaadudiin iyo qaybaha kale ee bulshada waxaana soo agaasintay hay-adda Irshaad oo arrimahaasi ka shaqeysa agaasimaha hay-adda ra'iis dhaafsiga ee Irshaad Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf ayaa sharaxaad ka bixiyay dood cilmiyaadkan iyo sida looga wada shaqeyn karo in dhalinyarada iyo dhammaan bulshada laga ilaaliyo in maskaxdooda lagu shubo afkaaro qaldan waan kana aqoon isweersiga oo ah in la ilaaliyo afkaarta muwaadinka ama qofka in la ilaaliyo Soomaaliyeed laga ilaaliyo waxyaabaha qaldan ee loo sheegayo ee la xiriira xagga diinta qofka in looga dhigo wax aan diinahayn in diin looga dhigo qofka qof aan walidii aqoontii diimeed meel aan ka gaarin oo sheekh caalim ah noqon inuu sheekh iskaga dhigo oo fariimo qaldan uu gaarsiiyo oo qofkii marka soo dhalinyaraha fariimaha intuu ku baaro marka dambe bulshadii uu ka banaanka uu ka maro oo bulshadii uu gaalaysiiyo liibaan cabdi cali oo ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta oo halkaasi ka hadlay ayaa isna sheegay in burburkii iyo dagaaladii sokeeye ee dalka soo maray iyo dhibaatooyinka maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab iyo qaraxyada ay geystaan ay ka dambeeyaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo aragtiyo qaldan laga dhaadhiciyay waxaan runtii ugu badan oo Soomaaliya hadda ka jira aan qabaanigu inay yihiin waa مشكلة فكري لا حريرته واي مشكلة لا حريرته ideology iyo wax dadku ay aamineen arintaas inay heer kan soo gaarto oo ay soo gaarto heer qof uu intuu bam isku rakibo uu isqarxiyo oo isku qarxiyo meel masjid hortiisa ama suuq ama school ama meel shir uu ka jiro ama xaflad qalin jabina inuu isku qarxiyo inuu gaaro waxaan isleeyahay waxa uu sabab ahay duruufihii wadanka soo maray dagaaladii sokeeye dagaaladii afkaarta ku saleysnaay aqoon la'aantii kala burburkii qabyaaladii mashaakilkaas oo dhan hadii cawaamil mutadaafira intaas oo dhan oo isku tagtay Sheekh Umar Daahir oo kamid ahaa culimadii dood wadaagaasi ka qayb galay ayaa tilmaamay in diinta islaamka in badan ay ka hadashay ra'yiga iyo fikradaha qaldan loona baahan yahay in laga hortago waxa kasto afkaar kasto qaloocanna in la faafiyo oo mujtamaca muslimka lagu dhex faafiyo ma ogola shariicada islaamka marka shariicada islaamka waxay u soo degtay waxa kamid ah aqliga bini aadamka inay ilaaliso marka amni fikriga iyo maskaxda in la ilaaliyo shariicada islaamka waxay u soo dejisay ilaalintiisa waxyaalo badan oo dhiirigelinaya ama cuquubaad ka ratimeeno oo qofkii la yimaado waxaas in la ciqaabo marka saas daraadeed aqliga amni fikriga maanta laga hadlaayo waa mid dawladaha iyo ummadahana raba inay horumar gaaraan ama dalkooda inay ilaaliyaan waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay soo badanayay wacyigelinta dhalinyarada loo soo jeedinayo oo ku aadan in ay ka fogaadaan fikradaha xagjirnimada si argagixisada aan uga faa'iideysan jiilka Soomaaliyeed Ibrahim Aadan Maxamed telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho